soo dhawaada asxaabey, magacaygu waa Maryan Adan Xaaji. Halkan aad naga daawanayso waa deeqsame. Kuji kuji hotahay micnaheedu waa wax baa dhacaya. Filimkan wuxuu ka mid yahay kuwa ugu caansan ee Bollywoodka Hindiya, inta badan dadka filimada xiiseeyana ay wada daawadeen. Laakiin waxaa laga yaabaa in aadan aqoonin fasiraadda magaciisa ee af Soomaaliga ah. Jilayaasha ugu muhiimsan filimka Kuji Kuji Hotahay: Rani Mukherjee, Shah Rukh Khan iyo Kajol. Wuxuu ka sheekaynayaa qisada 3 dhalinyaro ah oo uu jacayl dhex maray, wuxuuna soo baxay sannadii 1998. Dad badan marka ay filimkan ka sheekaynayaan waxay kuu sheegayaan inuu ahaa filimkii ugu horreeyay ee jacayl ah oo ay daawadeen, inkastoo ay jiraan kuwo kale oo ka sii horreeyay, aadna u xiiso badan. Qisada Anjali iyo Rahul oo saaxiibo isku fiican ah ayay koloojkooda u soo wareegaysaa tinaha xilli ay ku jireen sanadkii ugu dambeeyay. Jacayl 3 geesood ah ayaa bilaabanaya marka ay Anjali dareento inay jeceshahay saaxiibkeed. Laakiin Rahul indhihiisa waxay hayaan Tina oo marka si loo fiiriyo ka reer magaalsan Anjali, isaguna weligiisna wuxuu ahaa wiil gabdhaha iska foodeeya. Rahul iyo Tina way isguursanayaan muddo yar kadibna way geeriyoonaysaa Tina, waxaana uga tegaysa gabadh yar oo ay ugu magacdartay Anjali. Gabadha yar waxay uga tegaysa warqad ay ku qoran tahay qisadii Anjali iyo Rahul. Sannado kadib, gabadha yar ee ay Tina u dhashay Rahul ayaa iyadoo 8 jir ah isku dayaysa inay dib u midayso aabaheed iyo Anjali. Dhammaadka filimka waxaa ka soo baxaya Salman Khan oo raba in uu guursado Anjali, laakiin wax walba way isbedelayaan oo Rahul iyo Anjali ayaa isguursanaya, waxaana sabab u ah guurkooda gabadha yar ee uu dhalay Rahul. Filimkan waxaa lagu turjumay Alfagi Studio. Shah Rukh Khan waxaa u hadlaya Fuad Alfagi, halkan ay Kajol u hadlayso Nimco Haybe. Rani waxaa u hadlaysa Ayaan Siciid. Salman Khan waxaa u hadlaya Omar Osmaan Maaye. Codadka aad maqlaysan waa Fuad Alfagi iyo Nimco Haybe. aniga ma bii sheeganayso sidee ku bixaysaa subax maya subax marka hore imtixaanka dhamayso maya imtixaanka college-ka dhamayso kadib baa bixaysaa Rahul aniga imtixaanka inaan ka qayb galo mar walba mana soo noqonayo. Codadka aad maqlaysan waa Fuad Alfagi iyo Ayaan Siciid. Rahul talaado kasta adiga inta waad timaadaa? intaan imaadaa. waad fiican tahay. laakiin mil kuleejka maxaa been noogu sheegtay? waxaan been idinku sheegay wiilasha xataa ma yimaadeenno. laakiin aad waad timaadaa? aad ayay u fiican tahay. Codadka aad maqlaysan waa Omar Osmaan Maaye iyo Nimco Haybe. waayahay saa doontaan ku yeelaya anaga. fiiri maanta faalowgii annaga ayuu noo faalinay. sidii hooyada oo kale ma waxaad aaminsan tahay faalilow iyo waxaan jirin? haye aniga waxaasoo dhan ma aaminsani. waxaan aaminsanahay qof walba waxa uu ku dadaalo aakhritaankii inuu helayo. anigana adiga waan ku helay. maxaa heshay ii sheeg bal. halka shay ee aan dunida ka fiirsanaya waa adiga macaani. adiga haddii aan ku haystana wax kale uma baahni. Codadka dahabiga ah waa xidigaha Alfagi. Codka jiliinku waa hibo qof kasta aanu lahayn. waxaa la yaab leh ilaa hadda waxaa la weysan yahay Alfagi xagga jiliinka codka ku gaari kara ma jiro, mana jiri doono. taasi waxaa cadan u ah aflaantii ay Alfagi turjumtay. ilaa hadda dadku way xiseeyaan. Fadlan sheer garee si aan u helno saaxiibo aado kale ah. Mahadsaniid. halkan aad naga daawanayso waa deeqsame. magacaygu waa Maryan Adan Xaaji.